waayahay sidii caadadeena ahaydba aynu salaanta ku bilaabanno bintu nuur cabdilaahi iyo nasiim cabdiqaadir iyo faatimas saliim iyo muuse bile iyo bilaal cabdilaahi faadimo cilmi faadimo haldhaa dhammaantiinba wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada oo waqti dambe waan dareemaya laakiin mawduucan wataana waa mawduuc culus oo wuxuu la culus yahay waa hadalkiisa badan laakiin maaha wax aydan ogeyn maaha macnaheedu inaan idiin sheegayo. ramadaan maxamed wacalaykum assalaam waraxmatullahi wa allah ku barakayaadna. cabdilaahi binu jubayr aad baad mahadsantahay wala allah ku jeclaado. cabdimaalik cumar soo dhowow. reer tigtogow idina soo dhowaada lama horaan iyo safiya shidan iyo asma degan wacalaykum assalaam waraxmatullah dhammaantiinba iyo intiina kale ee magaciidiina uu ordayaba soo dhowaada. xamse ashraf bilaal cabdilaahi naciimo suleymaan cabdilaahi cali axmed wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. waaya ninkan tiktok la dhahdaa aqoon baan lahayno badow tiktok lifekeeda soo galay baana waaya kaltuun waxay leedahay lifekii ugu horreeyaan dhamaysan doono noqon doonaa. waaya hodan aw cabdi iyo nuuro jaamac axmed iyo hadiye cali iyo maymuun xuseen iyo nuuro maxamed sucaad xasan ibraahim suleymaan dhammaantiinba wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada allah idin barakeeyo. intaanan bilaabin waxaa idinka codsanayaa muuqaalka inaad sheer garaysaan. reer tiktok waxay odhan jireen shaashadaba inaad garaacdaan laakiin reer facebook oo idinku si fiican u sheergareeya. guruubada qabiiladiina ku sheergareeya, kii reerkiina, kuwii asxaabtiina, guruubadii dumarka u khaaska ahaa wakaas godadka laga soo baxo. waxaan doonayaa mawduucayga intaanan gudagelin bintu nuura waxay leedahay annaga noo soo wareega haddaan nahay reer facebook doctor. waaya waan isku wadaa labadaba saddex mobil kalena halkan u yaallaa inkastuu kani dabku kasii dhacay. reer tiktokna halkan igala socdaa, reer facebookna halkaas bay iga daawanayaan. halkanno anaa idinkala socda, dhaqdhaqaaqiina halkan kala socda waayo in dhaqdhaqaaqiina lala socdo weeye. soo dhowaada marar kale. muuqaalkana hala sheer gareeyo. weliba waxaan jeclaan lahaa muuqaalkuna uu duubnaanayayo barteena facebook oo walaya. reer tiktok haddii iyagu duubanayaan iyaga u taallaa, shaqaynaga noo taalla maaha. walaalada qaar bay soo weydiinayaan dhakhtarkaagu halku ku yaallaa, burcu ku yaallaa, xaafadda maxadka ku yaallaa. whatsappka tiktoka saaran iyo ka facebooka saaranba waa whatsappka cusbitaalka badbaado een anigu joogo. markaa whatsappkaas ad la xidhiidhi kulan haddaad u baahan tahay halkaas aynu kulan gaara ku yeelan doona insha allahu tacaala. ma bilowda hadda mawduucayga so salaantan wadaa youtube ma soo gelinaysaa bay luul halkaa ka tiri oo reer tiktok ka mida waa macquul. kolley muuqaalka marka uu dhammaado tiktok uu isiinaya waxaa odhanayaa qaado muuqaalkaaga markaa waynu eegi doonaa insha allahu taala. laakiin kolleyba bil buu facebooka dhex olayaa haddaad adigu saada u duubatanaaday kuu taallaa. mawduucayba caawa wuxuu ku saabsan yahay gabadha soomaaliyeed maxay u baahan tahay. baahidaana waxaa ka eegayaa xagga diinta. shay kastoo aan idiin sheego waxaa isku dayayaa inuu ama caqli ahaan inuu sax noqdo, intooda u badanna adilada shareecadaynu kala soo baxaynaa. waxaan kala soo qaadanayaa xaaladaha nafsiga culimada ku takhasustay xaalaadka nafsiga ay maxay u aqoonsadeen in qofka uu u baahan yahay. arrimahaasaan isdul taagi doonaa insha allahu tacaala. mawduuca intiisa ugu badani rag iyo dumarba waa u baahannahay. raggu waxay ugu baahan yihin say u ogaadaan maxay gabadhooda u baahantahay, sababtaa raggu way ugu baahan yihin. dumarkuna waxay ugu baahan inay ogaadaan waxay xaq u leeyihiin, baahidiin waxay tahay. saydan meelaha u odhanin xuquuqdeedii baa lagu ciyaaray, aakhiraa naloo diray, waa nalaga tegey, waxyaabahaasaan adoo odhan waa inaad garanaysaa xuquuqdaad waxay tahay. haddaad gabarh tahay maxaad leedahay,
maxay tahay baahidaadu xuquuqdeena odhan baahi baan anu ka hadlayay baahi baan ka hadlayay baahida iyo xuquuqduna farqi baa udhexeeya xuquuqda haddii aad weydo waad dacwoon karta laakiin baahi kasta haddii aad weydo macnaheedu maaha inaad dacwoon karta maaha marka waxaan ka hadlayaa anu gabadha soomaaliyeed maxay u baahan tahay waxaan idin la wadaagi doonaa 20 shay oo gabadha soomaaliyeed u baahan tahay salaamaad war farbadana waxaan kaloo idin la wadaagi doonaa ilaa iyo 10 qodob oo gabadha u baahan tahay markay guursato ku dhawaad 10 qodob ku dhawaad oo u baahan tahay markay guursato qodobka ugu dambeeyaan doonaya inaad ku soo gabagabeeyaan wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay ka dhigo ninka soomaaliyeed maxaa ka hortaagan baahiyaha gabadhan leedahay miskiinta inuu fuliyo maxaa ka hortaagan iyadoo waan kusoo xidhi doonaa oo markaa ka bacdi waxaan eegi doonaa sababtay baahiyahan ay gabadh dumarka leeyihiin ay u heli waayeen maxay tahay maxaa ka hortaagan waan kusoo gabagabeyn doonaa waxaan jecelahay muuqaalkani inuu saldhig u noqdo doodii maalmahan soconaysa ahayd dumarka meel baa lagaga dhacay iyo dhaqanka soomaaliyeed baa ku xadgudbay iyo waxyaabo badan aynu horey inagu uga hadalnay baa jirta oo aynu ka sheekaynay arrimahaasaan doonaya inaan ka hadlo ma bilaabaa intaanan bilaabin muuqaalka ma sheergarayseen shaashadda ma gargaraacneen reerihiinni ma ugu yeedheen xagga hoose yaa wakaas su-aalaha kasoo jawaaba kabacdi waan hore u dhaqaaqayaa reer tiktok waa daacad weeye haabay markiiba kusoo boobeen waay kaltuun sanaag iyo lamine yamal faadumo raxmac xabsa maariish hiba cilmi warwadad wanaagsan dadkan miya ilaahay ahaydin barakeeyo rag baa halkaa igala dardaarmaya dictoraadoo mahadsan baahida daruuriga ah iyo waxaa ka hor istaag dumarka waxba ka hor istaag maayo amu dumarka waxay u baahan yihiin uma sheegaya marka waxay u baahan yihiin ama way ku cajabinaysaa ama waxaa laga yaabaa inaanay ku cajabinba sax maaha marka labaduba waa noqon kartaa inay ku cajabisana waa dhici kartaa inaanay ku cajabinna waa dhici kartaa marka anigu intii aqoonteeda waan ka warramayaa cid aan wax ka hor istaagaya ma jirto way waad sheergaraysaa soo maaha de okay taa macnaheedu waxa weeyaan fariimihiina intaa wix ka dambeeya waqti badan gelin maayo oo waxaan uu ku mashquuli doonaa casharkaygu halkan igu diyaarsan yahay insha allahu tacaala marka waa 14 bog baa ii diyaarsan 14 bog bismillah anaa iska yaabay markaan mawduuca diyaarinayay maxay gabadha soomaaliyeed u baahan tahay waarkii aan ku diyaarsanaya 14 bog buu noqday marka 14ka bog baan doonayaa pointiska ugu waaweyn ee idinla wadaago waxyaabaha qaarkoodna waan iskaga tegayaa waayo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryayaa erayadan halkan ka odhan doono iyo waxyaabahan sheegaynaya inay noqdaan wax ummaddeena anfacaysa oo aynu kaga warrami doono waxyaabahaasi ay noqdaan waxyaabo ragga daawan doono muuqaalkuna ay ku ogaadaan waxay dumarkooda xaq ugu leeyihiin oy u baahan yihiin waxa ay tahay dumarkuna ay ku ogaadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin waxa ay tahay kabacdina baahiyaha aan isu dheelitirno meelaha qaarkood raggu ku liitaanna baahiyaha qaarkood dumarkuna inuu raggu ku liitaanna waa dul istaagayaaba baroosinkan ku aasanayaaba baahiyaha ay ku wanaagsan yihiin oo tilmaamay waxaan leeyahay aad bay u wacayn waxaan ku bilaabayaa waxaa jira nin psychologist ah oo la odhan jiray Abraham Maslow 1943 wuxuu soo saaray aragti cilmi nafsiyada oo odhanaysa baahiyaha aadamiga qofka ina aadan ama bani aadamku ama qofka humanka loo yaqaanayo baahiyuu leeyahay baahiyihiisaasi marka baahi la daboolo baahi labaad baa timaada sidaa awgeed waxa uu soo saaray waxa la dhahdaa baahiyo asaasiya oo 5 ah oo qofku u baahan yahay baahida koowaad oo qof kasta u baahan yahay waa rag iyo dumarba ugu baahan waxa loo yaqaanaa wax weeye waa psychological needs waa baahiyaha jirka waxa la physiological needs waa baahiyaha jirka
tusaale qof kasta nin iyo gabadhba wuxuu u baahan yahay cunto biyo hurdo hooy iyo waxyaabaha la midka ah haddii baahiyaha la daboolo baahiyo labaad baad yeelanaysa baahiyaha aasaasiga haddii aan la daboolina baahiyo kale u gudbi maysa sidaa awgeed waxa ay dhahdaan dadka xerooyinka qaxootiga ku jira kaamamka ku jiraay baahiyo go-an bay leeyihin marka qof kasta oo xero qaxooti ku jira wuxuu ka fikirayaa biyo ma heli doontaa cunto ma heli doontaa layli ma heli doontaa internet ma heli doontaa buu ka fikiraya hadduu intaa helo wax kaluu ka fikiri doonaa laakiin isagoon intaa hayn wax kale ka fikiri maayo marka taa waxaa loo yaqaanaa baahiyaha jirkaa la yidhahdaa waa physiological needs baahiyo labaad baa jira oo qof kastaaba uu leeyahay nin iyo gabadhba waxaa la yidhahdaa safety needs qof kasta wuxuu baahayaa amni iyo xasilooni qof kasta wuxuu baahayaa amni naftiisa inuu nabadgalaa buu baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxa weeye nafsiyan inuu nabadgalaa buu baahan yahay wuxuu u baahan yahay meeluu nabadgelyo ku dareemaya inuu socdo hoyga sugan buu u baahan yahay wax wada nabadgelyo ah buu u baahan yahay qofkaas xasilooni nafeed buu u baahan yahay xasilooni dhaqaale u baahan yahay xasilooni hooy buu u baahan yahay xasilooni jireed buu u baahan yahay xasilooni nafsiyeed ayuu u baahan yahay taana waxaa loo yaqaanaa waa baahiyo rag iyo dumarba laga siman yahay nin iyo gabadhba baahida uu leeyahay waa baahida labaad weeye baahida saddexaad oo Abraham Maslow uu tilmaamay waxa weeye qof kasta wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo love and belonging qof kasta wuxuu u baahan yahay jacayl iyo cid sheegata u baahan cid ku sheegata u baahan cid ku jeclaata u baahan oo ogtaada u jecla cid qiimahaaga garanaysa u baahan tahay imika waxa jira hablo badan waxa laga yaabaa inay niyadooda ku soo dhacdo marka walaalkood uu la soo hadlo ku dhaado walaalay xagaad ku maqan tahay caawa xagaad aaday xagaad waxa weeye u soo habsaantay aabaha iyo hooyada markay ku daba galaan wax su'aalo noocaas ku weydiiya waxa laga yaabaa inaad xanaaqdo atawa maxay dabagalkan lagu haya laakiin ma aha dabagal waa belonging cid baa ku tirsanaysa oo aad waxa weeye ka tirsan tahay oo ku arkaysa inaad qiimo u leedahay waxa jirtay qisa ay ila wadaagtay inan hablaha ila soo xidhay mid ka mid ah ayaa waxay u tiri maalin berigii horaan aabaha iyo hooyada la joogay waxaan aad u karaahiyeysan jiray in habeenkii la raadiyo la yiraahdo xagaad ku maqan tahay waad soo habsaantay naftaan u nacaybay maalintii dambe aabaha iyo hooyaday waan ka soo fogaaday muddan ka soo noolaa maalintii dambe aabahay waa dhintay hooyadayna nin kale iska guursatay aduu suuqa la kala galay waxa waayay bay tiri cid iga soo daba hadashay iraadisa waxaan u xiisay heblaaya xagaad ku maqan tahay is ilaali ma safar baad ku jirtaa xagaad sii socotaa hargeysa nimka sii galaya waaya hooyo is ilaali oo waxa weeye fiidka hore seexo cid waxa ay u tirahdaan waaye cid itirsataan waaye waan u xiisay hablo badan iyo dhalinyaro badan waxa laga yaabaa marka habeen kasta waalidkood ku dhada warhoy goor hore seexo warhoy soo noqo warhoy ha fogaani waryaa su'aalaha noocaas marka lagu badiyo saadaniyo waa maxay dadka maxay ku dhibayaan laakiin maalinta aad weydaabaad u xiisi doontaa waa love and belonging okay marka qof kasta wuxuu u baahan yahay jacayl wuxuu u baahan yahay cid ku jeclaata waxaad u baahan tahay cid ku tiraahdo waa ku jecelahay waxaad u baahan tahay cid ku tirsata oo qiimahaaga aragtaad u baahan tahay oo ku tiraahdo nagama maarano waa kuu baahannahay waxa weeye annaga naga tirsan tahay maalinta dhibaata ku soo gaadhana dhinacaaga soo istaagta arrinka afraad oo qof kasta u baahan yahay waa ixtiraam kalsooni nafeed buu qof kasta u baahan yahay esteem needska waxa la yiraahdo waxaad u baahan tahay inaad kalsooni aad hesho kalsooni nafeed baad u baahan tahay guul baad u baahan tahay inaad gaadho in shakhsiyadaada lagu ixtiraamaad u baahan tahay muuqaalka aad leedahay in lagu ixtiraamo baad u baahan tahay inaan lagu dacaayadin waxba lagaa sheegin oo aan lagu caayin muuqaalka aad leedahay waad u baahan tahay qof kasta intaa waa u baahan yahay baahida shanaad ugu dambaysa qof kasta u baahan yahay oo waxa loo yaqaan self actualization oo ah dhamaanshiyo nafeed buu qofku u baahan yahay goormuu qofku naftiisa ku faanaa waa marka uu ogaado inuu wax qabtay yacni wuxuu leeyahay qofkaasi wallahi I did something waxbaan sameeyey for that reason sababta awgeed farxad baan u dareemaya happy baan dareemaya waayo waxbaan qabtay waxbaan soo kordhiyey imika macalinka ardayda waxa weeye soo saaray 20 sano ama 30 sano ugu dambeeyay macalinka ama maamulaha ahaa ee iskuul gacanta ku hayay caruurtii uu wax soo baray arkay iyagoo wasiir noqday tujaar noqday maalqabeen noqday dhakhaatiir noqday uu ku faanaya wuxuu leeyahay wallahi cumrigeygii 30 sano macalinka soo ahaa waxbaan qabtay waana ku faanaya alxamdulillah waxbaan I did something waxbaan sameeyey adamaarka marka baahiyaha shanta ah nin iyo gabadhba uu u baahan yahay waana baahiyo uu soo kordhiyay ninkii psychologist-ka ee la oran jiray Abraham Maslow 1943
marka baahiyahaas marar badan baynu siyaabo guud uga hadalnay baahiyaha rag iyo dumarba waa looda leeyahay dhammaanteedna waa leenahay dumarkuna si gaara u leeyihiin aan haddaba gudagalo waxaan gudagalayaa baahiyaha sida gaarkaa ay dumarkeenu ay u leeyihiin gabadh kasta oo Soomaaliyeed waxay u baahan tahay sharafteeda in la ilaaliyo in la sharfay u baahan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baana karaameeyey walaqad karramnaa bani aadamka ilaahay karaameeyey baana gabadhu ka mid tahay sida awgeed gabadhu karaamay u baahan tahay in la sharfaabay u baahan tahay in la ixtiraamay u baahan tahay in la ilaaliyo u baahan tahay qodobkan waa isla wada garanayna Soomaa waa baahida koowaad ee gabadh kasta oo Soomaaliyeed ay leedahay sharafteeda iyo karaamadeeda in la ilaaliyo okay arrinka labaad ee gabadh kasta ay xaq u leedahay baahida u leedahay waa xaq tacliim iyo tafaqquh xaq waxa u leedahay inay wax barato inay wax fahantay u baahan tahay inay wax barato xaq bay u leedahay waa baahi asaasi ah gabadh kasta leedahay inay wax barato sida awgeed meelaha ugu badan khilaafaadka ka yimaada waxa kamid ah waxbarashada anigu waxay dadka aan ku dhex jiro waxa kamid ah aan u shaqeeyo qoysaska khilaafaadku ku dhex jiro sida awgeed qoysas dhan badan ka saay khilaafka kaliya ka dhex taagan waa tahay waxbarashada uu ninkii leeyahay gabadhay guriga ii joog waxba ha baranin halkaaga fadhi ma degree dhigana ha naga farsada ma master baan ku daray waxba ku darimaysid guriga ka dhaqaaqay joog waxaynu leenahay waa baahi kamid ah baahiyaha ay gabadhu leedahay inay wax barato nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay talabu ilmi fariidatun ala kulli muslim in cilmiga la raadiyaa waa shay faral ku ah qof kasta oo muslim ee gabadhu dadka muslimiinta ay ka tirsan Soomaa sida uu xaq u leedahay meelaha dhaqanka Soomaaligu ka liitaana kamid tahay qodobkaas inaan dumarka loo yaqaan inaan wax barashadoodu wax weyn aan ahayn mar waxa aan baadhay ba jirta maahmaahiyo waxaan raadiyay mawduucda markaan raadinay waxa kamid ah waxyaabaha raadiyay maahmaahiyaha liita ee dumarka loo isticmaalo qaar aan fahmi waaye afkooda aan isleeniyo yaa isticmaala af Soomaaligaas fahmeen ayaa dictionary-da qaarkood iga soo baxay qaamuusyada maahmaahiyada Soomaaliga ku qoran marka mid ba macnaha Soomaaliga marka la soo wariyo macnaheedu wuxuu ahaa gabadhu wax kasto ay barataba wax macnaha ku soo kordhinayso yaani guriga fadhidaa maxay wax ka baranaysaa laakiin waxa leenahay waa baahi ay leedahay gabadhu inay wax barato waxa dhowto laga doodo waxaanay baranayso sidee bay u baran doontaa sidee bay u dhaqaaqi doontaa halkee baa laga bilaabi doonaa waan ka doodi doonaa laakiin waa baahi ay gabadhu ay leedahay minawna ay tahay inaad ogaato okay arrinka saddexaad ee gabadh kasta ay u baahan tahay waxa weeye waa ar-ricaaya wa nafaqa al-kaamila in la ilaaliyo mas'uuliyadeeda la qaado dhaqaalahana laga bixiyo in la maalgeliyo u baahan tahay gabadha waa baahi ay leedahay waa in dhaqaale la siiya la maalgeliya la xooleeya aanay gaajoonin dhar ay xidhata aanay waayin waxay wax ku barata aanay waayin waxay isku qurxiso inaanay waayin hadama aragta marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kafaa bil mar'i ithma nin waxa dambi ugu filan inuu dayaco cidii uu biilinay aabaha kowka ah walaalkaaba mas'uulka ah haduu aabaha maqay walaalkaaba mas'uulka ah haduu walaalka maqay yahay ninkaaga mas'uulka ah adeerkaaga mas'uulka ninka ugu dhow ee mas'uuliyadaadu ay saarantay waajib waxa ku ah inuu baahiya gabadhaas ay leedahay daboolo sida ogeed inuu nafaqeeyaa laga doonaya الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب آيات إليه وحتمامها الرجال قوامون على النساء قوامون الرجل إليه وحيابه كهلا وحكمنا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم حولها يبحنا sida ogeed meelaha waxa ka maqlay iyadoo rag qaar kood lagu dacaydinayo waa daanyeer gabadha ka adag gabadha maamusha gabadha caynkana ha ku maamusha xoolahaaga si yaad wax soo shaqeynaysaa kale waa ninku cid uu shaqeynayaa ninku cid uu shaqeynayo dhaqaalaha maanta uu dhididaya iyo xilliga uu soo jeedaayo ugu jira waxa weeyaan xoolahan cid loo shaqeynayo waa gabadhan si loogu qurxin lahaa hadama aragta sida ogeed gabadhu waxa weeye waa shay qurux loo abuuray إلهي سبحانه وتعالى وحليه أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين جواد مرك إلهي كورمي وحلو وعد له بربري أومن ينشأ في الحلية قرح زينو دلال ذهب كي يا حريرتي يرجع حارانتك دمر كي ولا بني صوت اللي بني يوم حين يسكو قرحيان هذا والله عقت يسكو قرحين تحيه كي نسمي تشيل كذا كجر عشان سميه منك بحنا يد منك هو كيف بحنا يا به من كذا أدير كذا ولا الكذا dadkaas la yaraado inay bixiyaan
صح ما سيدا وقت قبل كستا وباهيدا صدحات حق أولي ذا حوية إلا نفقيو حول لسيو لقرحيو لدلاليو أيو باهتا دهبك وحوية لوسيريو قولوا كما دي لفهمتين أوكي قولوا كافراد قبل كستا وباهتا وحوية المحبة والمودة إلا تشعل وباهتا تشعل وباهتا النبي صلى الله عليه وسلم وحو كتب المؤنسات الغاليات ومؤنسات وحوية أنس يوحى لقيه لي ومحا سؤال كل هذا المؤنسات الغاليات مؤنسات كي غالية هوي لقيه لي دوكسي لقيه لي ما أنت وننكو لباتي سنة ماشي وكدقية وهالكا ما أنت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حراء صمهن أو قالي إذا ملك جبريل ويمي أو بقوتشي wuxuu soo cararay isagoo argagaxsan buu soo cararay markaas uu yimi xaaskiisii Khadiija isagoo la dathiruni idada markay dadaya uu naxdintii ka soo miraabay iyada dejinaysa wuxuu yiri waxa weeye waan hoogay dabeedna waxa ku tii kalla ilaahay ma ku dhaartay lan yukhzika Allahu abadan ilaahay waliga ku hoojin maayo adamaarta waliga ilaahay ku hoojin maayo markaas uu sheegtay waxa laala wuxuu ku wanaagsanaayo وحوي مسكين كات قودسا كوحوي اللي تاجرتا كعلامة علوسيات وقادة مرتدات صورتا مقف كونك سمو سجى كده نبي جواد دقي صلى الله عليه وسلم مكا المؤنسات الغاليات وهلك قالقة عدة هو الضمر كوية سداو الضمر كي وحو باين شعيل يقل كعل باين عدة كواد يقل كعل وباين وبهد وين ماشي كواد كسر بالعمس هذا مرك نبي صلى الله عليه وسلم وحليه خيركم لأهله ninka idinku khayrka badan waa ninka gabadhiisa u wanaagsan reerkiisa iyo xaaskiisa ninka u wanaagsan weeyaan xadiis kale waxa ku yimid khayrukum linisaa'ihi ka idinku wanaagsan waa ka dumarkiisa u wanaagsan xaaskaaga inta u wanaagsan tahay ayaa khayrkaaga waleeyay gabadhaada ma ku xunta habaar ilaahay baa qabta qof wanaagsan ma tiid dadka marka waa baahi asaasi oo ay leedahay gabadhu in waxa weeye ay hesho jacayl ay hesho taageero ay hesho weeyaan وانا ماشي رجلي سوماليات أكو بابين كالكعل كيو إن لسجلعين يمود يأكل دمرك لا يسمعش العيون دمرك واي هل كده دلفة دي صنع وما له الرجل كل تام كمتها إن السنين باكر أو بقرة مركب بناء كيمادان وما لها ساعة كلامتهم يا الله بقر كيوي بقر مركو لكن جرجس يحاس يسولش وغيره وبهر ساسو gabadha wala tirsanaya oo cunaya aakhiro u diraya waarkada waara feer buu dhiibay allaadka dhig karba ku kacay markuu gurigiisa yimaado banaanka markuu joogana waxa loo yaqaan shuyukh al-allama doctorkii hada professorka injineerka marka inta wanaagaaga iyo sharaftaada oo laagta waa inta gurigaaga iyo xaaskaaga aad wanaagsantahay weeye waana حديث ويانا ما هو من سيكولوجيست يلي وحنا حديث دي أدلة الراعي سال الله أردن نكمل مسعود فيمينيزم يسوي ذلك أردن كشنات قبل أي أوبا هنتي وحويه العدل في المعاملة سوى ناكسن وعدالة كلها هنتي الله رقمه عدالة كلها رقم من يقبل هو كلا صار عروت هذا كلا صار سنة هذا ما يقبل وين تاني يقبل ينقد دايو وح إن أنت أتسيس ويلك واحد سيسوى إن أنت نسينسا دمارك واد ilaalinaysa ma kala saarsaaraysid ma dulminaysid ma oranaysid oo gabadh baad iska yara fadhiso ma imaado dib dumarka xuma cunaan ceeb xagga dama fadhiso nafarka xagga horaa ka cunina xagga dambada xaq u leedihiin hambada iska suga may cadaalad buu baahan arrinka lixaad oo baahiyaha oo gabadh kasta leedahay waxa weeye in nabadgelyo la siiyo laga ilaaliyo dhibaatada xadgudubka aflagaadada cayda laa darar walaa dirar dhibaato ma mudna islaamkuna waa uu ilaaliyo dumarka nooc kastoo ay dhibaato tahay dumarka waa laga ilaaliyo looma ogola inay murugooto lama ogola oo quraanka meelaha ugu badan ee xusniga ku soo arooray qaybo badan oo kamid ah dumarka leeyla taxsani amrugeen hooyadii umu Muusa waxa loo diiday murugada loo diiday Maryam bint Imran murugada loo diiday dumarka muruga ma mudna sida awgeed culimada nafsiga iyo xanuunada maskaxda ka warama waxay tilmaamaan murugadu gabadha nolosheeda ayuu baabiyaa waa uu baabinaya nolosheeda caafimaadkeedu baabinaya wuxuu baabinayaa ilmaheedu baabinayaa mustaqbalkeedu baabinayaa
quruxdeeda ayuu baabiinayaa timaheedaasi ma dhaldhalaalayaan oo timo dhaadheer oo qurux badan gabadhaas ma yeelanayso way daadanayaan dheeha wejigeeda ay isbedelaya digsi dabadiiba way ekaanaysaa gabadha murugada iyo waxa weeye lagu koriyeen ciilka lagu koriyo quruxdii oo dhan baa meesha ka baxaysa sidaa awgeed gabadha waxay u baahan tahay in la ilaaliyo waana sharaf inaad gabadhaada difaacto anugu ragga ugu qiimaha badan la waxyaabahan ku tiriya waxaa ka mid ah ninka gabadhiisa ilaaliya hadda tusaale yar baan ku siinaya tusaale ahaan gabadhaadii baa waxa dhacday khalad bay adiga kaa gashayba dabadeedna dadkii baa kaaga soo warrama wax ku dhaha alla hebelow islaantaadi saasay lahayd geesinimada waxaa ka mid ah tahda miyada saa tidhahaa waa sida u tili weeyaan marar badan inaad gabadhaada dadka hortooda ku difaacdo waa qayb ka mid a macnawiyaadka xooggan ee gabadhaada aad ku soo kicinayso ninkii heesaaga ahaa ee BK la odhan jiray hees baa jirta uu qaaday beri hore heestaas iyadoo music aan lahayn baan dhowr jeer dhageystay intii aanu heesaha kusoo noqonin baan silay heestaa reaction ka bixi aad baan uga helay reaction ka bixi falcelin ka bixi maase muuqaal ka samay anigoo muuqaalkii iyo wixii oo dhanba diyaarsaday buu dib ugu soo noqday heesii deedna waxaan isli war haddaad heestiisa iyo waxaa ka sheekayso armaad heesiisa iyo xumaantiisa dhiirigelisaa heestaa wuxuu lahaa talo maan canaadeen caqligaagu keeno kumaan caasiyeen abid haddaad qaaddo calanka ereyadaas oo ereyaada qurux badan wejigaaga ciil iyo cadho kuma abuureen hadal aad ka cabatana caway kuma idhaahdeen waxyaabaha uu tilmaamaya waxaa laga yaabaa heesaagii abwaankii heestaa u dhiibay inuu iska tiriyey laakiin waa caynul xikma waa xikmaddii oo toosa weeyaan marar badan waxaad u baahan tahay inaad difaacdo xaaskaaga waxyaabo badan ay tidhaahdo waxyaabaha xitaa guriga qurxiya waxaa ka mid a oo xaaskaaga xitaa niyad wanaagga siinaya in fikir ay soo jeediso adigu aad diidan tahay xitaa inaad qaadato oo tawaar maxaad waxaa u samaysaa taaniyo islaantaasaa tidhi haddama aragta marwadaa saa soo jeedisay xaajiyadaa sidaa tidhi marar badan bay muhiim ay tahay haddama aragta adigoo dareensiinaya qiimaha ay agtaada ay ku leedahay maaha macnaheedu marka lagu leeyahay ninku isaga ayaa guriga ka taliya macnaheedu maaha inaanu waxa weeye gabadhu aanay fikir soo jeedinaynin waxba aanay qabsanin xagga dambaan kaga sharaxi doonaa bal xaasaskii nebiga sala allahu alayh wasalam oo xilliyadii ugu adkaa nebiga ka saaraya aan hore ugu socdo markaa heestaa uu biigka leeyahay wejigaaga ciil iyo cadho kuma abuureen hadal aad ka cabatana caway kuma idhaahdeen talomaan canaadeen caqligaagu keeno kumaan caasiyeen abid haddaad qaaddo calanka kumaan caasiyeen abid macnaheedu waa maxay fikir bay gabadhaasi soo jeedisay waad ku taageeraysa waxaa laga yaabaa fikirkaas inaanu kooga qurux badnayn ama fikir ka duwan baad ugu hayso adoo iyada tusinaya inay fikir soo jeedisay yes waad fikirtay waxa weeye go-aankaaga waa kugu raacaya waxa weeye socodsiin wixii khalada waynu saxaynaa laakiin mar hadduu fikirkaaga qurux badan yahay khalaas adaa inoo taliyaba maanta caawa reerku halkuu guuraya adigaa ka talinaya socodsiin arrinka toddobaad oo baahiya oo gabadh kasta ay leedahay waxa weeye waa alxaqu fi likhtiyaar gabadh kasta xaq waxay u leedahay inay wax doorato wax qasab la yidhahdaa ma jirto sidaa awgeed baa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy laa tunkaxu layimu xataa tusta'mar walaa tunkaxu lbikr xataa tusta'dan gabadha bikrada aan lama guurin karo ilaa idan iyo fasax laga weydiista mooyaan aaba ducay iyo habaarka la qaado waa dhaqamada aadka u litay ay ragga soomaaliyeed leeyihiin waxa weeye ducay iyo habaarka la dooro midna dooran maayo ee aabansi anaa awooddeeda leh anaana dooranaya waxaan anigu doonaya waxaas dama aragta si awgeed waa baahi iyo xaq ay gabadhu leedahayna wax iyadu doorato oo aan la qasbi karayn dama aragta wixii ay waalidkeeda ku raacaysa meesha waalidkeedu odhan kara aabbaanu saasaan jecel hadday waalidkeeda ku raacdo waa khayr iyo barako laakiin wax qasab la leedahay ma jirto waana xaq iyo baahi ay gabadhu leedahay wax la kala doorasiiyo gabadha marka la soo gaxeeyo haddaad xataa bacadla aad timaadaan dharka noocaas ma jalbaabkaa madow qaado kada kaa wallaahi midaan inaad qaadanayn ma jirto waxaas keen bacadlaha waxay doonaysaa qaadato midabkay doonaysaa qaadato keliya waxaad ku ilaalinaysaa un manaadka sharcigaa un inaan diinta laga dhex bixino haddama aragta okay baahida sideedaad ee gabadh kasta ay leedahay waxa weeye waa inay asturaad iyo dhowrsoonaan ay hesho oo sharafteeda loo ilaaliyo dhowrsoonaan inay hesho islaamku waa uu ilaaliyey gabadha sidaa awgeed baa islaamku gabadha wuxuu ku faral yeelay
waxa weeye inay xijaabato xijaabku waa qayb ka mid ah ilaalinta iyo xuquuqda ay gabadhu leedahay hadda gabadha inaad xijaabka qaato waa xaq iyo baahi adigu aad leedahay maaha tabarruc dadka qaar baa moodaya xijaabku inuu yahay tabarruc iyo wax gabadha lagu qasbayo inay tahay iyo waxyaabahaas maaha waa waxaad adigu xaq u leedahay adaa xaq u leh inaad asturto hadda maaragta sidaa ogeed baa ilaahi subxaana wa tacaala uu kugu taageeray oo waxa weeye uu faral kaaga dhigay oo ajar aad ku helaysaa adaa laakiin xaq u leh in lagu ilaaliyo sidaa ogeed baa ilaahi wuxuu leeyahay daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn gabadh xijaaban oo is asturtay lama dhibaatayaba dumarka la leeyahay meelahaasaa lagu kursaday in badan oo ka mid ah waa dumar xuquuqda iyagu lahaayeen ka tanaasulaya isma asturayso isma ilaalinayso dhar waxa weeye jilicsan bay xidhanaysaa way isqaawinaysaa deedna waxa ku leedahay rag baa kursaday dee wixiiba soodigan la hor cararay maaha nin lala hor cararay bari iyo daba iyo waxsaa loola hor cararay waa bahal waa waraabe iyo dawaco haddaad la hor cararta ka waran quruxdaada aad la hor cararto dee wixii dhibaato ku soo gaadhay adigaa isu geystay ilaahay baa wuxuu leeyahy daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn hadda maaragta marka xijaabku waa faral waajib ku ahaa gabadha muslimada inay qaadato dhinac kale markaad ka eegtana waa baahi ay gabadhu leedahay inay asturnaato hadda maaragta waa baahi ay gabadhu ay leedahay inay asturnaato sidaa awgeed in la asturo in la ilaaliyo in la qurxiyo hadda maaragta xaq bay gabadhu u leedahay arrinka sagaalaad oo baahida sagaalaad ay dumarku leeyihin waxa weeye waa alixtiraam fi lmujtamac mujtamacu inuu ixtiraamo bulshadu inay ixtiraamaan oo aanay waxa weeye dhibaato aanay gabadha u geysan arrinka tobnaad ee baahida ay gabadha xaqa u leedahay ama ay u baahan tahay waxa weeye waa inay ka qayb qaadato dhismaha bulshada inay ka qayb qaadato gabadhu waa baahi ay leedahay arrinka 11aad ee gabadhu baahi ahaan ay u leedahay waxa weeye waa alixtiraam daakhil al-usra qoyska gudihiisa in gabadha lagu ixtiraamo fikirkeeda la dhageysto waxa weeye la maqlo waxay soo jeedisa la qaato ixtiraam loo muujiyo hadal oo hadalkeeda la qaato lala sheekaysto waa waxay xaq u leedahay gabadhu arrinka 12aad ee gabadhu baahida ay u leedahay xaqa u leedahay oo baahiyeedana ka mid ahay waa inay hesho al-istiqraar nafsi wa zawji haddii ay xaas yeelatana waxay u baahan tahay in guurkeedu yahay guur sugan haddii ay gurigooda ay joogtana waxay u baahan tahay sugnaanshiyo nafeed bay u baahan tahay inaan la duuduubin inaan la dhibaataynin ayay u baahan tahay sidaa awgeed rag badan baa jira oo dumarkooda inta ay guursadaan ku dhibaateeya guurka gabadhii bay siyar qabanayaan ifur bay ku odhanaysaa kuma furaya buu kule wallaahina weligaa saasaan isaga daba laalaadayna aan waa laalaado ka daa hay laalaadinna ka daa aan iska tagay may mana furaayo 5 sano bay ninkaaya gabadhaas iska daba wareegaya oo wax cajaa'ib leh ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan waariyaa gabadha ama si wanaagsan u hayso ama si wanaagsan u siidaa labadaa wax u dhexeeya ma jiraan imse dumaraa guryaha ka qaylanaya oo guryaha ku dayacan oo waxa weeye meelaha waxa weeye ku baaba'aya oo gabadhii ninkiina ma furin waanu ka laalaadaa ma ku furaya buu leeyahy arwaal iska kaysi warqadeeda kuma rabe naawalla ka tirana ku furayn intii iga kaa gashay baan kaa soo saaraya waar walaal meher kama qaado waa iska tegaya anugu warqadda unu yeedhi ma jirto waxay soconaysaa fasakho maxkamadda iyo meelaha tag bay soconaysaa may laga yeeli maayo taana odayaalba halka sugayna may adeer gurigaaga iskaga noqo war ku noqon mayno ee warqadayada nasi may ya meelaha dulmiyadu ka dhacaan bay ka mid tahay fa imsaakum bimacruuf waar gabadha ama si wanaagsan haysan siida waa baahida 12aad leedahay in gabadha si wanaagsan loo haysto iyo si wanaagsan loo siida waxba ma dhaxeeyaan arrinka 13aad waa maxay marka ay gabadhu wax wanaagsan sameysay lagu dhiirigeliyo laga waad mahadsan tahay hada maaragta sida awgeed nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu idiin sameeyo wax wanaagsan fakaafi'u waa abaalguda haddii aanad helin waxaad u abaalgudana wax tahay jazaaka allahu khayran waa waad mahadsan xaaskaagi baa maanta oo dhan kuu kacday cuntay kuu karinaysay qolkaagii yaraaway ayaa hagaajinaysay macawistaad ooda kaga baxday ee maantaba nidaaminaysay dee u mahad celi naa walaal ilaahay khayraa ku siiyo xaaskaygii duca qabto jannada dalag hore ka gal ilaahay idinkii adduunya aakhira waa barakow haddaad adduunya haysatana dee u dhiib $100 waa abaalmarin weeyaan dahabkaasna waa kaas jimcaha ya laakiin
dhaqanka Soomaaliga wuxuu iska aaminsan yahay dhaqan ah ee ragga Soomaaliyeed u sanaysan yihiin baa wuxuu yahay in gabadhu waxana ku qasban tahay gabadhu maxay kala guriga qabanayso bila hadaan cuntada karinin oo dharka maydhay oo kan kale aan sameeynin maxay ka qaban lahayd meesha hurdo u soo doonto waradeeda inta uma iman gabadhan daryeel kale iyo arrimo dheeraad ah loo yimi ubad baa loo yimi waxa loo yimi suuheshi baa loo yimi baahiyaad kale oo asaasi ah loo yimi hadama aragta marka dumarkii loo mahad celiyaa u baahan mahad celin bay u baahantay mahad celintuna marka ficil bay noqon kartaa hadalna waa noqon kartaa ducay noqon kartaa hadama aragta wakaas waa baahida 13aad ee gabadhu leedahay baahida 14aad ee gabadhu leedahay waxa weeye in xoolo yeelato haddii ehelkoodu qayb ka mid ah ay dhintaan inay dhaxalka ka qayb qaadato xaq bay u leedahay islaamkuna uu siiyo xaqooda lirrijaali nasiibu mimma taraka alwaalidaani walaqrabuun walinnisaa'i nasiibun sida ninku dheef iyo nasiib uu uga leeyahay dhaxalka ugu leeyahay gabadhuna dhaxalka ugu leedahay dhaqamada Soomaalida ee hore qaybo ka mid ah waxa jira oo waxa weeye dumarka u diidi jiray dhaxalkaba waa gabadha xagee geynaysaa bay ku leeyihiin كلما نبى قرصنيه كلما نبى قرص وارجع هقرص ده ما أنا حاله وبعني ما أنا تهجرت كان عصتها أنا نوكر ما أنا وحي يلان كريم يد هاو يلان كذا ده وده هي يلته إسلام قاسي خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم قرص ده وحاس كيس قيمة بدنا راحين ده كان عصتها حوالي هيست دورته طول بعض الصحابيات كذا حوالي هيستنوا وجهه marka gabadhu xoolaheeda dhaxalka qayb ka noqonayso arinka 15aad ee gabadhu ay xaq u leedahay waxa weeye hadii la guursadana in cadaalad loo sameeyo hadii gabadh labana la guursado in cadaalad loo sameeyo hadaba aragta cadaalad bay mar walba u baahan tahay wax kasta oo la bixinayo in cadaalad laga eegaabo u baahan tahay fa in khiftum alla ta'dilu fawaahida marka sharcigu waa inoo jideeyay in ninku dhowr dumar oo guursan karo laakiin goormo guursan kara waa marka uu cadaaladooda ka soo bixi karayo kama soo bixi karayo iska haysan miskiinta yareed waxa way iska ka ogol iska la joog arinka 16aad waxay baahiyaha gabadhu leedahay waxa kamid ah in wax walba loo fududeeyo aan lagu adkaynin sida awgeed ilaahay ba kuma adkayninba maxaad ugu adkayn baad ahkaam fara badan baa ilaahay ka ridi oo matala marka ay caadada ay leedahay salaadii baa laga ridi oo soonkii baa laga ridi lagu yiri marka la qalayn doonto oo waxa weeye waajibaad fara badan oo shariicada ayaa oo faraa'idii salaada ugu weyneed baa laga ridi xilliga xaydka ay leedahay xilliga dhiigga dhalmada ay leedahay xilliga uurka lahayd ama dhibaato ay ku sugnayd xaalad caafimaad darro ay ku sugnayd xilliga ilmaha naaska jaqsin xilliyo kala duwan baa jira oo ahkaamtii ilaahay uu fududeeyay marba sidii ay wax u suura galayaan waxa way looga dhaqmay maadaama gabadha noocaas ilaahayba uu ahkaamtii shariicada iyada awgeed baa loo badbaday bal ka waran gabadhaada xaaska ee guriga ku joogtay imsa baahiyood iyo imsa dhibaato ay leedahay u baahan tahay loo badbadalo mar walba hadalkeeda mar run baad u qaadanaysaa mararka qaarkood bay calaysan tahay ma hal mar run baad u qaadan rag badan baa jira oo aan waxa weeye daraaso ku samaynin gabadhiisi baa qabsan sax koon say furkaas uu u dhiibay 3 dalqadoodba sumee doonayna in lagu furaha kaalaga anaga kugu dhawaaqaynay tii koowaad ma aysaha talabaadna ku darso markay sida ka soo noqdo saxano kugu dar warada gabadha xagada furtay iyada iga dalbatay uu kulay laakiin xaaladda kaaga dalbatay xaalad nooceeyo ay ku sugnayd hadama aragta arinka 17aad oo baahida dumarku ay leeyihiin waa in dhaqan wanaagsan loo dhaqmo loo dhibirsanaado loo dulqaato inna allaha rafiiqun yuhibbu ar-rifqa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa dhibirsan yahay shay kastana wuxuu ilaahay jecel yahay in la dhibriyo dumarka loo dhibirsanaado loo dulqaato waxay ku leeyihiin waxa weeyaan aanad waxa way marar badan aad qaadan nabi sallallahu alayhi wasallam baa xaasaskiisa mid kamida baa waxay u keentay gurigiisa isagoo saxaabada qaarkood la joogaan baa waxay keentay xeero ay cunto ku jirto guriga Aisha keentay ayay keeneen Aisha aragtay waa way maseertay niyadeeda markii waxa ku soo dhacayna maana cunto karsan kar waayay anigoo nabiga iyo saxaabadiisu martii yihiin baa aniga gurigeyga cunto kale lagu dul keenay xeeradii cuntada ahayd way kala jeesayba dhulku ku daatay cuntadiina uu firdhay xeeradii cuntada lagu soo ridana way kala jabtay nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu dhow la cadeeyay wuu gaarat ummukum hooyadiin way hinaastay soo dhow la cadeynaya
يعني هنا ساكا كيني إن وحنا دبعتها يو فالدنبيه ده إيجارسيتو هذا ما ركت مركا واكاس قدر كمان كوسي تيجال ما حاجة دمان وحياة قارب تقدر دونا باهين سيدي تمناد أي قبل دو عيلا ده وحوي وين على الحقيرين رأي عن الحقيرين عقل على يريسانين لكن كان الصومالي دويلين رجل بدك سأل كولانيا أنا قدوم الكلام هذا لا سريرته ما نقول هذا لا وسريرته صار سمعت ما هلس ما ذهب لس يمشوا هي رئيس تبارك أكلي أنا قدوم الكلام ما هلا حلو يدينا قدومك أنا أرسل رجل بشرة كدولا وخلادات كميتها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة دي وحلا حاسس كيسة ما حليته وأدق بولا تشنتي soo sheegay hooyadeen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam la tashanayay xilligii sulhul hudaybiya markii la galay waxa weeye la doonayay in ay saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam doonayay soo umreystaan oo xajka aadaan waa tii gaaladii quraysh ay u diiday nabigu wuxuu ku yiri cidii hadiy wadaanaha qasho timahana hala xeerta buu yiri saxaabadii markii soo kulay saxaabadii diideen yana oranayna yani hore u qaadan waayeen fikirkii nabiga sallallahu alayhi wasallam hore u qaadan waayeen oo amarkiiba hore uga dhaqaaqi waayeen nabigu xaaskiisu soo noqday sallallahu alayhi wasallam isagoo dareensiinayeen saxaabadii uu baqayaba waayo amarkiisii bay diideen soo jeedintii nabiga sallallahu alayhi wasallam bay diideen waxay u sheegtay ummu salama bay ahayd Soomaa ummu salama waxa ay u sheegtay nabiga sallallahu alayhi wasallam fikir oranaya nabiga ilaahayow adigu neefkaagana gowraco timahaagana xiro oo inankii u yeelo xataa kaaliyo timahaaga xir خلاص shaqadii ku taalama intii uu sameeyay dhammaan saxaabadii oo dhan cidii neefaf iyo xooloodina xooloodii way gowraceen kuwii kalena timahoodina way xirteen ilaa sidii timaha u xirayeen ay ka baqeen saxaabada qaarkoodna qoortaba iska tiraanba si timaha u saga xirayeen ya waa cid fikirka keentay ma Abu Bakar ba keenay mise Umar ba keenay mise Uthman ba keenay mise Ali ibn Abi Talib ba ragi weeyna miyay keenay fikirka may Ummu Salama ba keentay nabiga sallallahu alayhi wasallam kalsooni ba xadkiisa ku qabay kamu warwarino maraya saasatira abarska min ka fiirsanaa mise wala armi dhaqaaqooda shaki mu galino horo ka dhaqaaq markii hore ka dhaqaaqina waa tii saxaabadu ay ku liibaaneen hada maragta gabadh bay hayde Aisha intaas oo su'aalood bay nabiga sallallahu alayhi wasallam weydiin jirtay oo cilmiga shariicada la xiriira dood bay la gali jirtay su'aalaha qaar kood oo cid maskaxdooda ku soo dhacday aan jirin bay nabiga inoo weydiiyay sallallahu alayhi wasallam oo imka laga maskaxdeena ku jirto حديث عائشة سوور سوى حكم إذا ما أنت قيامه النبي صلى الله عليه وسلم الشيعين قف كستاوى بنك قيامه يمن دون حفاة عراة غرلا يجو قف الوب بلغت كتالو قاون وكبحنين بقف البي من دونه عائشة وحي ودي رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما أنت آخرين يلي استاوني ما تكش يعني كتير ذلك وقتها يا من لسوف في السنة والسؤال ده قفك عادي يا مستحي سبسون عيث النبي صلى الله عليه وسلم هو جوابه أحاديث أي عايشية وحوية يصور نيان ترملها النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يسوع عكوري قيب كم من الدين تينا كلابر دين تينا كم إذا كقاطع هذه الحميراء كبرنا النعس عايش وكان لي صلى الله عليه وسلم تبارك مركا فكرة ده هو قروح ذا بدل الدمر بالجهة وهي قبل حاس كابو وحكي لك هذا دون يسمر والواحد تعيشين تقروح بالناتو qofka aad talada weydiinayso waxa la eegaa muxuu faa'iido ka doonaya ma lacag buu ka rabaa ma dhaqaale uu ka sameynaya ma meel buu kugu gaaraya hadaba xaaskaagu adigu inaad wax noqotaaday waxay aaminsan tahay markuu ninkeedu wax noqdayna iyaduna wax noqonayso sida ogeed iyada cid kaaga dhex jecel badan ma jirto aabaha iyo hooyada xaaskaaga kaaga dhex jecel badan ya haddii maanta dhibaato ku soo gaadho marka hooyada laga imaado qofka labaad ay dhibaysaa dhibaatada ku soo gaadhay waxaaskaaga weey ee la tasho wax ka weydii dumarka looma sheego jeebkaagu intuu leeyahay maxay oran jireen xoolahaagana looma sheego shaqadaadana looma sheego walba waxa kalena looma sheego waxa weeye waa fikrado ku dhisan fikirka inaanay dumarku ra'yi fiican iyo waxa weeye wax badan inaanay soo kordhin karin fikirka ku dhisan weeyaan baahida 19aad ee gabadh kasta ay leedahay waa in laga ilaaliyo imtixaanaadka fitanka
inay sharafteeda lumso marar badan dumarkaaga waxaa looga faa'iidaystaa maadaama dumarku ay yihiin dad caadifiyiina ay yihiin oo dareemadooda marar badan gabadhu way ka emotional badan tahay way ka dareemo badan tahay marka ninka loo eego sidaa awgeed baa gebigeed way emotion soconaya weeyaan waa sababta dhiirigelinteedu meel waxa weeye uu kuu gaarsiinayo gabadha dhiirigelinteedu dareen baa la socda xaaji hore u socod waxba kaa xumaan maayaan iyadoo laabta kugu haysa bay intaasoo eray ku leedahay laabteed ku jirta hataa garaaci wadnaha halkan ka maqlaysa markaase iyadoo saa lagu hayalo leeyahy waxba kaa xumaan maayaan hagaa laga helaa faaraxo marka ra'yiga lagu siinayo iyo talada lagu siinayo dareen baa la socda dareenkaa la socdaa meel fog ku gaarsiinaya hadama aragta okay arrinka 12aad baan leeyahay gabadhu waxay baahi iyo xaq u leedahay arrinka 20aad waa baahida 20aad gabadhu xaq u leedahay waxa weeye alxaqu fi tacbiir xaq waxay u leedahay ra'yigeeda inay cabirto waxay xaq u leedahay inay soo gudbiso waxay dareemayso hadama aragta nabiguna sallallahu alayhi wasallam dumarkiisa waa dhageysan jiray ilaahayna quraanka uu kaga waramay gabadha hadlaysa oo doodeeda dhiibanaysa qad sami'a allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ilaahay ma oran gabadhaas in iska aamustaabay yaa kuuli ka hadal inaad dacwato ma ahayn ilaahay baa le waxa ilaahay uu maqlay hadalka gabadhii ninkeeda ka cabanaysa kabacdina nabiga ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku kaga waramay rag badan ba waxaan la yaabaa mararka qaarkood waxay ugu dhahdaan inuu haya gabadhu inay cabashada noocaas soo sameeyaan yara ceeb ahayn deemay ma ceeb maxaa ka dhigay waxbay diiday Soomaha de ha cabirto caafimaad qabkay kamid tahay ha hadasho wani waxa wallahi kamaan helin sax laka xaq baad u leedahay hadal sheego wabni aadam sida uu ninku u leeyahay dareenka uu leeyahay uu xaq ugu yeelanayo inuu cabirayo gabadhuna xaq u leedahay hadal haddii gabadha hadalka lagu cabiriyo xanuuno maskaxeed ay qaadaysaa dad badan oo dhalinyarada wadaadada kamid ah waxa isku rogtay aayadda ilaahay uu leeyahay wal kaadimiina al-ghayda wal caafiina 'anil naas waxa la oranayaa ma calisan tahay isku qari qirib la yaasiya nooc wal kaadimiina al-ghayda kuwa caradooda qariya waxa weeye waa jannada gelaya على قرص هذا ممكن بياس ويحنا حنونا حكوس يقدر أو ويدلع وقالت ويا هذا درين كاج عبر واحد درين مش الشيء النبي صلى الله عليه وسلم قبل باوتي وسيت النبي لا يهبل مدوني أنا وحوي حقوق دي السلام كجدع مدوني لك والله ونعي النبي صلى الله عليه وسلم وكفر كمورا إن هذا الشوك ونعي ها وقرجاء إلى شو قرجاء إلى شو iska aamiyo waxa weey waxa la meelaha waxa kuma oranay sallallahu alayhi wasallam waa kala furan waa wixii maxaa jawaab wixii si loo soo celin kartaa khulcu sameey khalas wabillahi tawfiq wala u kala tagay meeshaas war soo sax ma hade waka 20 kaaba waxa weey way leedahay okay intaas waa 20 ka baahiyad ma dila faantay waxaan u gali doonaa ilaa 8 9 10 meelaha baahiyood oo gabadhu ay leedahay markay xaas ay noqoto 20 ka baahiyood gabadha la qabo iyo tayare aan la qabin ee guriga hooyada joogta labaduba baahiyaha 20 ka way leeyihiin 20 ka baahiyood ee dumarku leeyihiin dumar oo ma fahanteen raggii qaybo kamid Facebook oo iska tageen midaawanayay soo qorada fahanteen عبد الكريم بقى وحسوا قرأ جوده هذا الكيدو الماء وعوره بل إسكت هنا هذا الشيء قرمو عورية هذا الكيد ما هذا الكيد هذا ليس عالي يبع عوراء النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة دي سؤال فريان بيدمر كهذا رسول كإله يو سلا كورن من النبي كول هذا طوارا ما جوده والنوع من الرجبة إلى فريان هذا الكيد وعوره هذا مركب القرآن بيسوق الدين سجود مركب هذا الكيد وعوره موضوع والدين تيان وحوي لقلت فهم الدين محي سمينا داني قبله حدلين
maxay samaynay imise xadiis baa ku soo arooray iyadoo dumar rag ay fadhiyaan inay dumarku u yimanayeen nabiga sal alla alay slam ay su-aal weydiinayeen sala allahu alayhi wasalam soo sax maa waayahay intaa haddii aad fahanteen walaalada qaar baa soo qoraya 20 waa nagu yartay waa intii aan ka gaadhay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baahiyaha iyo xuquuqda uu dumarka uu sameeyey aad bay u fara badan yihiin qur-aanka iyo axaadiistaba oo ka buuxdaa intan waa ishaaraya tilmaan weeyaan xagga dambaan raggii u iman doonaa rag badanoo waxaan ka hadlayo fulin waayey waxa ka hortaaga waan sheegi doonaa okay xaaskaaga marka ay gabadho xaas ay noqoto maxay ninka xaq ugu leedahay oy u baahan tahay waxay u baahan tahay walaalow in loo dhibirsanaaday doonaysa in loo naxariistay doonaysa nabiguna saxaabadiisa waa ku dhiirigeliya khayrukum liahlihi hadda maaragta waana khayrukum liahli waxaan filayaa saxaabigu wuxuu ahaaba cumar ibn khataab baa wuxuu arkay xaasaskii nebiga qaybo ka mid oo nebiga hadalka ku celinaya omaa nebiga ilaahay sidaa ahayn meewa sidaana weeyaan saa weeye oo hadalka isku celcelinaya u yaabayba wuxuu islahaa dumarka nebigu sala allahu alayhi wasalam kuma celiyaanba nebiga hadalba kuma celiyaan buu islahaa laakiin wuu yaabay markuu arkay hadda maaragta marka waxay xaq u leedahay in loo naxariistay u baahan tahay wanaagga in la faray u baahan tahay dhibirsanaan bay doonaysaa nebigu sala allahu alayhi wasalam waa baahida labaad ee gabadhu waxay u baahan tahay in lala ciyaaro bay u baahantay saxaabigii soo sheegay magaciisa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi waariyaad guursatay waxaan filayaa wuxuu yidhi waxaan guursaday gabadh carmalo oo islaani baa guursaday oo caruur haysata nebigu wuxuu ku yidhi ummada inan yaroo bikra aad guursatay tulaacibuhaa wa tulaacibuka oo aad la ciyaarto baahiyaha gabadhu ninkeeda ka rabta waxaa ka mid inuu la ciyaaro waa la is eryanayaa waa la tartamayaa nebigu sal alla alay slam wuu la tartami jiray xaasaskiisa maalmaha ka mid a caaisha ka warramaysa waxay leedahay saabaqanii rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa ila tartamay tartan baanu gallay fa sabaqtuhu deedna waa ka dheeriyey way ka dheeraysay nebiga sala allahu alayhi wasalam war qolooyinka tiktok ee kala socda waa ahludiinba jaabir buu ahaa bay idhahdeen waa kuwa axaadiistii ba hayaanba waxay leedahay caaisha nebigu sal alla alay slam maalin buu ila tartamay markaasaan ka dheereeyey deedna muddaa ka soo wareegtay oo tidee nebigu wuu ila sugayey muddaa ka soo wareegto maalintii ay gabadh weyn ay noqotay caaisha oo hilib ay korto ay waxoogay yeela gabadh hilboon ay noqotay buu nebigu maalintii dambe ku yidhi ka waran ina tartansii maanta tartan kalaa la galay way wada ordeen dabadeedna markaasay nebigu sala allahu alay slam baa ka dheereeyey caaisha umulmuminiin caaisha radia allahu tacaala canha nebigu sal l slam wuxuu hi haadihi bitilka tanaan kaa dheereeyey tii hore u tuur ilaa adigii tii hore adigii ka dheereeyey marka baahiyaha gabadha leeda waxa ka mid a in lala ciyaaro ciyaartu maaha sariirta in laysla koree waa ciyaarihii kala weeyaan la kaftamo lays eryado taambuul la wada ciyaaro dhuumasho la wada ciyaaro yaa dhuumasho dhabarku muuqdo iyo mid aanu muuqan labadaba in la wada ciyaaraa bay u baahantay haddama aragta waaya waa baahida labaad ay gabadhu leedahay weeye axaadiisna waniga idin keenay baahida saddexaad ee gabadhu leedahay in la tusaayo waxa weeye in la dareensiiyo inay nafteedu daahir tahay nadiif tahay kalsooni aad ku qabto xanuun aanad ka baqaynin macnaheedu waa maxay xaaskaagu baahiyahay leedahay waxaa ka mid a koob bay biyo ka cabaysay koobkaa biyahay ka cabaysay afkaasay ka cabaysay soo maaha afkii ay ka cabaysay inaad adna ka cabto baahiyahay ka mid tahay dumaroo meel ku qortay waxa laga yaaba inaydaan ogeyn markii hore baahiyaha inay ka mid tahay oo nabiga sala allahu alay wasalam caaisha ka warramaysa waxay leedahay kuntu ashrabu waana xaydu anigoo xayd leh oo dhiiggii caadada le baan biyo wax cabayay weelba wax ka cabaayay deedna nebigaan u dhiibaya weelkii aan ka cabaayey markaasuu nebigu wuxuu afka saarayay halkii aan anigu ka cabaayay macnaheedu waa maxay waa kalsoonisiin tilmaamaysa xaaskaygii nadiif baa tahay carabkaaga candhuuftaadan ku kalsoonahay caafimaadkaagaan ku kalsoonahay weliba xilligaa uu nebigu koobkeeda
ay wax ka cabaysa uu ka cabayaa waa xilli ay gabadhaasi ay caado leedahay waana xilli gaaladii yuhuudeed ee xilligaa joogtay ee madiino ku sugnayd haddama aragtaa magaaladii madiino joogtay ay aaminsanaayeen gabadha haddii ay caado leedahay inay najaas ay tahay way ka carari jireen ma dhiiggii baad eetaa assalaamu calaykum 7 maalmood ee dhiig uu kaa soco safar ma iska gelaya anugu acuudu billah oo kaa fogaanaya uu sii carari jirayba nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka cabayaa halkii ay ka cabtay waa afka saaraya isagoo dareensiinaya maxay inay daahir tahay inay nadiif tahay dhabteeda ayuu nabigu ku jiifsanayay markaasuu qur-aanka ku akhriyay iyadoo caado leh madaxay wakaas markaa baahiyahay ka mid tahay dareen gaara bay muujinaysaa macno gaaray samaynaysaa laakiin macnaheedu ma aha markaan leeyahay halkaasaa laga cabayaa dhalinyaroy qaar badan baa markay isguursanayaan aroosyada niicda maaragta aroosyada niicda anigu waxaan u aqaanaa aroosyada meelaha laga tumanaya kuwa heesaaga inta loo yeedho keegba inta afka ku qaaday ninka afka u gelinaysa bilaa dhaqan weeyaan waa bilaa weji waa bilaa maxaa dhahdaa waa qof aan waxa weeye dhaqan iyo xishootan aan lahayn weeye dee gurigiina markaad joogto afka u geli waa sax ku sii afkaaga iyo dhagahaaga ugu sii haddaad doonto laakiin inaad muuqaallo meelaha ku duubtahay waa bilaa dhaqan weeye waa waxa weeye waa xishood la-aan waa damiir xumo waxay ku tusinaysaa qofkaasi inaanu xishood lahayn xishoodkuna waa qayb ka mid a iimaanka alxayaau min aliimaan wa shucbatu min aliimaan damaragta markaa iska ilaaliya dhaqanka markaan sidaa leeyahay macnaheedu maaha dhaqanka inaan dhiiri gelinayno maaha waa dhaqan aad u liita oy dhaqankaas waa dhaqan aad u liita iyadoo markeeda horaba arooska heesaha iyo qurunka laga dulshidanayaay uu dhaqan aad u liita u yahay oo diin la-aan uu yahay oo weliba waxaan idinku bishaareynaya qoysaska markay aroosyada dhiganayaan sidaa u bakleeyaay guurkoodu ma sii jiraba in badan oo ka mid a inta dadka ugu badan ee isfurtaay waa dadkaa weeye dadkii arooskooda uu qarsoonaaya iyagu waxa weeye cilmigooda iyo caafimaadkooda la qarsaday 30 sano 40 sano 50 sano jira isagoo bilaa buuqa aragtaa marka qaar baa intay muuqaalkayga uga faa'iideystaan ma odhan doonaa u geli keega jara afka may halkaa ha ku degsoomin waayahay baahida afraad ee xaasku ay leedahay waxaa ka mid a in dadka hortooda lagaga faano jacaylkeeda allah waryaa waa kan qodobka dumarku u dhimanayeen imakunbaan soo gaadhayba baahiyaha xaaskaagu leedahay waxaa ka mid a dadka hortooda inaad kaga faanto qiimaheeda inaad dadka u sheegto aad tahdo maxaaskayga haa guushanaan gaadhay xaaskaygaa qayb ka ah waa baahiyahay dumarka xaasaska qabaa xaasaska leh ha idhaahdo ay leeyihiin bay ka mid tahay nebiguna ficil buu u sameeyey nebigu sal allahu alay wasalam oo nin baa nebiga sala allahu alay wasalam u yimi su kuuri yaa rasuul allah man axabu nnaasi ilayk rasuulki ilaahayow dadka yaad ugu jeceshahay isagoo aanu nebigu ka warwareegin kana fakrin buu wuxuu caashaan ugu jecela waa xaaskiisii gobonimada ka mid tahay xaaskaaga inaad ku faanto waa gobonimada laakiin maaha meel walba de waxay samaysay waxaana samaynba inaad iska tahay qaar baa israado dumarkii inaad wax ka heshaane meelaha xaaskaygaa buuggani la qortay hadda waxba ma akridaba marka waxay u yaro baahan tahay wixii inaad ku yaro darta maxay run inaad ku yaro dartaa way u baahan tahay soo maha markii wuxuu run ay wadatay dareen ay wadato macna iyo dhadhan bay leedahay daaragta dhadhan iyo macnay leedahay matalan haddaad tiraahdo buug baan qoraysay imka caawa life baan ku jiray xaaskayga ay taageertay shaahiyaan cabayay ii diyaarisay biyahii ii soo diyaarisay haddama aragta haddaana iyadu joog lahayn oo deegaanka qurxin lahayn lama hadleen waa hadal saxa weeyaan laakiin lifekay la gashay internetkay gaadh ka haysay inaanu go-in haddama aragta marka siyaabo badan baad gabadhaada ugu mahad celin kartaa laakiin waxaad ugu mahad celinaysaa run ha noqdo si uu iyadana kalsoonideeda u kordhiyo waxyaabaha weliba muhiimka waxaa ka mid a dumarkaaga inaad ugu faanto dadka ehelkeeda ah qoyska inantu kasoo jeedo seedigaabaad la kulantay sodogaabaad la kulantay inaad u faanto aad taha maasha allah wallaahi abaad baan u fiicannay alxamdulilah xaaskina wacantahay duca qabtadii ilaahay iga keensiiyey ilaahay baa subxana watacaala qadiray inaan idila xidido inan boqoradaba ilaahay waxa weeye iga keensiiyey
dee maasha allah waa annagaa dee degan quruxdaa naga muuqanaysa xaaskaygaa qayb ka ah iyadaa waxa weeye wakaas faanka noocaas waa qurux weeyaan xataa waxay niyadda u degaysaa aabbaha inanta dhalay ba xitaa niyadda u degaysaa hooyadeed markaad sodohdii aad la kulanto aad u sheegto hada maasha allah oo dee ducaqabtadii aad ku soo tacabtay ilaahay ha barakeeye waa taa waxa weeye gurigii iyo maasha allah dee waa nimcaana ku jirnaa nimcaba nagama dhinnaba marta meelahaas waa muhiim weeyaan sirahan idiin sheegayahay weliba ragow siraha kalaan idinku daraya waxaa ka mid a waa neo tiktok muxuu leeyahy way balaay waxaa la isku beebeegaya u koranaya anigaa ka saareen way siraha kalaan idiin sheegaya waxaa ka mid a iyadoo xaaskaagu kula joogtana waa la amaanaa dad kalena ay kula joogaan maragta islaantaadii baa halkan kula joogta dad baa idin soo booqday qaraabada gacanta qabso hadday gacantaad qabsanaysa dabeedna gacanteedii baad haysataa waad sidii qof ilaashanaya oo kale dareen gaara way muujinaysaa maragta waar dumarkiina ku faana golayaasha kaga faana ku celceli maaha mar walba sida digriga golo kasta aad joogto alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xaaskayguna way mahadsan tahay may ee munaasabada la eego soo sax maaha waa baahida afraada xaaskaagu ay leedahay haddaanad xaaskaaga ammaanin dee iminka baa maanta u bilow waayahay baahida shanaad ee ay xaas kastaaba ay leedahay waxa weeye inaad shaqada guriga la qabato ninku inuu shaqada guriga la qabto qadadii bay karinaysaa basasha u jarjar haddaanad waxba qaban karaynin nin fariida baan maalin wareysto sax kula wareere bal ka waran qoysaska iyo waxyaabahaas iga warramo deedna markii dambe wuxuu iga sheekeeyey gurigiis deedna wuxuu ku dhaha anigu cuntada ma aqaanin si loo kariyo mana aqaanin basasha iyo waxyaabaha noocaasa ma aqaanin wuli sida loo googooyana ma aqaanin xaaskayga waxaan u qaabilsanahay buuri ka qoslinta kijadaan u fadhiistaa buuri iyo gambarka halkaa ay ku fadhiday cuntada khudraadta iyo ku jarjarsay cuntada ku karinayso meel u dhow baan aniguna gambar ugu soo fadhiistaa sheekadaan u qabtaa sheekadaan u hayaa buuri ilaa iyo inta ay ka dhammaynayso cuntada ay karinaysa buuri anigaa u dhadhamiya beerkii bay shiilaysaa marxabad yar ka waran ma bislaadaytano anaa laydhiyo buuri dhalam waa ku ridaa sharaabkii la qasay waan dhadhamiyaa deedna waxaan eegaa sharaabkii sonkorta waa ku yarta wallahi wakaa dheg magaranaysa milixdii baa maraqaa laga dhiibaa qaadada maraqoomse ka dhadhami miyuu milix leeda miyo waa kawaa waxaan ku idhi rageed baa tahay shaqadaasi waa shaqo weyn intaa lafteedu waa shaqo weyn intaa lafteedu waa shaqo weyn wey haddaanad wax kala qaban karaynin kajada la fadhiba cuntada waxa wey magaranaysa deedna wuxuu yidhi niyow laakiin hal dabci baan yeeshay halkaa dabci baa maxay baan ku yidhi wuxuu yidhi canjeelada marka la dubayo buu yidhi suqaarkay horkarisaa deedna suqaarkii halkan yaalla canjeelada buu yidhi marba xabad lahaa xabaa dee laga soo qaadaya xabad canjeelada laga soo qaadaya dabkii deedna wuxuu yidhi xabadii kululba bileeri baa halka yaalla waa lagu ridaa xabadii kastaba waa la haaga anoo 100 xabo oo canjeelaha dhameeyey baan arkaa hadhow ma islaanta ku leeyahay hadda anigaa wixiiba dhameeyey sitaa mee waa caadi iyadoo qoslaysa rag badan dareenka noocaasa way ka qatan yihiin kijada ma arko guriga markuu sidaa usoo gala albaabku garaacaya waa laga furayaa wuxuu hore ka gelayaa qolkiisuu gelayaa 4 xabo canjeelaha iyo bileed yaro tibcaana waa loo dhiibaya inan yaro halkan ka tiyareeda aabbaha maanta horada aabbaha ogey way qaadaysaa deedna odayga halkan loogu tuuraya dee maad kijada iska soo gashi maad kijada intaad iska soo gasho islaanteeda iskala fadhiisatay waa tiraadi soo daa maxaad haysaa waa kan idinkii ciyaalku halkiina ku boobtaan bileerkaaga dacalka ka sido bileerkaaga dacalkaaga ka sido dabeedna waxtaa ku soo rid yaa markay kugu yeersay daxaajay ku soo rid wallaahi wuxuu waad yeersay 2 qaadoo kale ku soo rid anaa idiin warramaya dee anaa idiin warramaya asxaabay raaxada iyo farxadda qoyska in lagu sheegaya waa in yaroo adigu aad samaysato qaar baa kabanaya qoysas baa waxay ku jiraan farxad bay ku jiraan farxad baa caynkan dee farxadda samee adigu samee dee soodiga adigu dhagaxa noqday aan samayn karayninba saantaada iskala ciyaar kijada la gal la soo dhamee yaa kijada shaqooyin badan baa ka dhacaa soo waxa weeye markaa socodsii way naga hadlinayaan ka war
waxaanan doonin ba doon sheelan afka ka soo saartaan wariyaada waayahay kaana yakunu fi mihnati ahlihi fa idha hadarat as-salatu kharaja ila as-salat nabi sallallahu alayhi wasallam shaqada guriga ayuu qaybtiisa qaban jiray dharka kari kan kala dhamee waa kan damarka kabaha shaqaysanaysa dharka la mayd qasaaladii bay dharka ku guraysaa halkan qasaaladii ka wareegaysaa maroojinta adigu qaabilsano islaantaada maalinta qasaalada dharka ku gurto maaragtay dhinaca fariiso adigu maroojinta qaabilsano iyaduna ha ka soo saarto sheekadii heer aan laba kursi halka dhigta intay gooxaysanayso sheekaya markay sidaa waxa weeye xabada waxa weeye maroojiska qaabilsada feedo waaweyn deedna halkaas inan ba halka waxay ugu soo qortay kijada inuu soo galmo fiicna digto ma cunta karinta wax ka qaldan yihiin war gala kijada gala yaan waxa la isku sheekeen kijada nimcooyin badan baa yaalay gala weeyaan inta madina fahanteen qolada TikTok waxay soo qorayaan haddii guriga lagula degan yahay ka waran taasaa dhibaataa guriga in cidi kula degin waa naga qalaya badhe guriga wax ku qurux badan yahay adiga iyo xaaskaaga iyo carruurtaadu inaad deganaataan xataa shareecada islaamka saasaa waafaqsan inaad tahdo nin baanu guri wada gelaynaa oo markaad qolkan hawshiina ka socoto isna halkanoo hawl kale ka wada oo islaantaada iyo isaga barbar dhaafaya oo deedna marba kijada suuliga faarax baa ku jira ka soo bax odagii ciisa soo baxayo suuliga gelaya waa dhaqan aad u liito weeye hal qolna ha noqdo ee qolkaasi gaar idinkaa idiin noqdo meel gaara gala laakiin qor laydinla degan yahay qoysaska qaarkood baad arkaysaayo guriga dhan gurigaba waxaa degan islaantii sodohoodaa degan war islaantaasaan garan waayo meesha waxay qabanayso sodohda maxaa dhex dhigay gurigii inanteeda lagu qabay qol halkaa ka soo jeedaa halkaas ka salaamayso ma fiicantiin way idin maqlayaade waa dhaqan xun weeyaan waa dhaqan xun weeyaan wax kasta oo guriga ka socda halkaasi kala socota inkaa dhaqankaa xun hala joojiyo dhaqankaa hala joojiyo guriga yaana cididinla degin walaaladaa gurigan loogama baahna habaryartaa loogama baahna eedadaa loogama baahna guriga adiga iyo xaaskaagu ku xaraabaysta ku raaxaysta gurigiinaas qaraabada iyo ehelkana meelo kale u dejin ragga qaarkood baa jira oo gabadh intuu guursado wuxuu ku leeyahay xaafadan qol ka mid dejinaya degadaa dejinaya meel gaara dejisa gabadha waya malayacni gaar ula bax gabadhaada intaa baad ila fahanteen sodohyada guryaha dhex joogana ha laga qabto xataa markay aniga ii yimaadaane la talinta qoyskaa sameynaya haddii xitaa sodoho gaar uga timaado xaga degan tahay guriga inanka igaan deganahayo iyadoo kaas waa imsa qol musbanool bay ku jiraano iskaga gur ilaahay haddaad garanaysa iskaga gur ilaahay deg iyadoo duruufta dee saamixi weydo mooyaane haddii duruufta saamixi weydo waa meesheeda haddii duruufta kaa adag tahay sooma hadde daniyada kaa adag waayahay markaa islaantaada meel gaara iskala deg waayahay baahida lixaad cabdi axmed wuxuu leeyahay sodohoodu waa la taliyo ustaadi haddii aad dhaxdo sodohdu way xanaaqi maxaa sameeyaa uminu sodohdaa cabdo waa in guriga laga raraa gurigu sodoh ma qaadi karayo sodoh iyo sodog iyo seedi iyo abti iyo adeer iyo waxaa midna ma qaadayo gurigu wuxuu ku qurux badan yahay in waxa weeye uu khaas u noqdo labadaa qof isqaba wixii duruufi ay keento waa meesheeda hadday duruuftu keento waa meesheeda waarinta maad ila fahanteen duruuf waxay keentaa anuguma diidayo aragta waxaaba waxa ka daran dad baa iska imanaya se waxay ku leeyihin marti baan nahay martida qaraabada guriga imanaysana 3 maalmood ba xaq inoogu leeyihin 3 maalmood wixii ka badan waxa loo saneeyo guri walaa insha albeerka maahayn 3 maalmood martidu way kula joogaysaa 3 maalmood wixii ka badan gurigu albeerka maahayn waxa weeye hore u sii socda walaa qaraabada iyo dadka kale soo booqanaya intaas xaq ugu leeyihin martidu waa 3 maalmood 3 maalmood wixii ka badan hore sii socda way rag badan baa halka ka soo hadlaya bal markana in iyaga u jawaabi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waayahay aanu imaado baahida lixaad xaasku ay leedahay
baahida lixaad xaaskaagu kuu leedahay waa marka ay hinaasta inaad u dulqaadato. xaaskaagu markay hinaasta inaad u dulqaadato waa baahida lixaad ay leedahay xaaskaagu. u dulqaadashay kaa rabtaa. waa ninkii adeertay idinka warramaya Caaisha markay jebisay weelkii ay soo dhiibtay mid ka mida ummahatul muuminiin oo cunta ay ku jirtay gurigeeda la keenay. markaasay inta xanaaqday bay weelkii kala tuurtay. nabigu sallallahu alayhi wasallam cuntadii uu soo ururiyay, weelkiina uu soo ururiyay. markaasuu yidhi qaarat ummukum, hooyadiin way hinaastay ama way maseyrtay. marka macnaheedu waa maxay? gabadhaadu marka ay maseyrto waa inaad u dulqaadataa. dulqaad bay kaa doonaysaa. way ku tuhumtay, meelahaasaad madowgaad raacday, liidkay ku aragtay adigoo raacaya, telefoonadaadii baa farabatay, whatsappkaagii baa mashquul noqday, hinaasaa yimi. dee waxa weeye shaydaanka iska naadho xaajiyo. adiga cid kula mid ma jirto yaad waayo gabadha kale adiga dhinacaaga soo istaagi kartaa. man hu af English af Carabi Soomaali iyo af Xabashi intaba isugu dar. xataa cid adiga kula mid ma jirto, gabadh ku gaari kartaana ma jirto. shaydaanka iska naad waa ka ciise la hadlayo isaga ay soo garaacay waka maarta numberkiisa waa ka weeyaan shaydaanka iska naad. a'uudu billahi minash shaytaani rajiim. khayr iyo barako dajide maxaa wax xanaaqay ama furniin baa doonaysaa iga qabsho labadii dalqoodba may. waa baahida lixaad ee gabadhu ay leedahay. arrimaha qaarkoodna hore ayaan waxa weeye u tilmaamay. gabadhu waxyaabaha baahiyaha ay leedahay waxaa ka mid ah in lala maydho. xaasku baahiyaha ay leedahay waxaa ka mid ah in lala maydho. in lala maydho ma fahmaysaa? kitchenka waxaa leeyahay kitchadii bilaayada ay daba socoto weli inaad xaaskaaga kula meydhato musqusha, shaawarka, xamaamka oo kaas aad bay u wacan tahay inay lamaanuhu ay wada maydhaan. وانا dhaqan nabiga sallallahu alayhi wasallam ismaan jira Aisha leeda kuntu aqtasilu ana wa rasuulullaahi min inaain waahid takhtalifu aydina fihi. aniga iyo nabigu hal weel baan wax ku wada meerin jirnay. yani baaldiga inoo soo bixi biyaha la iska dhameynayo qosolka ka baxaya halkaas. shaqo aan lahayn baan caawa gacanta ku hayaa. wariyaale shaqo aan lahayn baan caawa gacanta ku hayaa. waa meel raggi waxa ka sheekeyn jiray tameynaya. يا شقة أين الله لكن هو شقة لو بعنا سما أوكي مركا إن ويل كلي الجودة ميدو وحياة وحوية إلى داعي باهي السديدات أي قبض حاس كاي إلى دو حكم إذا إن لمقلو لنجيستو وحيدون سنة لو فيديو هذا ما ركتا موسى وحلي الدكتور ضد كم يشي كنت جوا سنجلا باب كاس صحبك فاني ما يعني جاس ثم تكوك عينيسا ده هو ككع فردي ويا موسى ككع يا ككع فردي ويا قارب بدون الله ماي لا بس أنا عيدي من صدق سنة عيدي من مستر بان كدرايا فردي ككع هونو أبايو أبو فردي ككع أبو ولا يارجي واي باهيدا سجالات أي قبل ولا ده حوي إن دقيستو من هالقاس أروح كلية مسكح لي هماك بس صورته خد كذا صارت ورود بانتي خد كلها صارت سينما قلدن بلغا صاري كون واتوس ويا marka gabadha in la dhageystay u baahan tahay waxay doonaysaa in loo sameeyo u baahan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maamaha kamid ah soo gurigiisa joogaba wuxuu arkay Aisha doonaysaa inay daawato qoladii xabashida oo masaajidka agagaarka iyagoo ku ciyaaraya aragtay marka ciyaarta xabashida istiri wallahi ina daawato u baahan nabigu wuxuu ku yimid doonaysaa inaad daawato uu istaagay deena gadaashiisa istaagtay garabka nabiga ku dhuumanaysa iyadoo halka ka daawanaysa nabiguna uu asturaayo هذا ما رجع تواضعنا إلى أي أنتي أي كدر جيسي أي كقن عيسي أي عيارتها سفي عنه غدا ونيسي نبي هو وتاجنا مركز دم بيدنا واحد حسبك أنت سايب فلان ولا وين داري هذا نبي أنتي بوتاجنا صلى الله عليه وسلم سوى حاسك سيرانه قرب كوجود دم بيان كسر كبجبينه وحوي النبي صلى الله عليه وسلم أن منه ولي قبل مدلين ركبة كرا جعنته ضد مركز تقانو ninka iskama celiyo gabadhu yaqaan sida loo dilo
damtaasu ka saaraya feerka jugta suxulka jilibka koodka bela kugu dhaca ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده لا امرأة ولا خادمة حديث الإمام مسلم ورميه النبي صلى الله عليه وسلم ولكي قبلنا مدلين قفوا الشقيين مدلين حاس كيسا ولكي قعنا مقادم وقيس إن ماذا كمتاعي نينك الرقع وحنا نواقعنا نينك قدو القاطة قبليسا خلط يدو له قدو القاطة يعني وحبك سوقان أي هذا وحاس كي وأم عيالي وقبل عروتي ذا الشيء وعروتيدا hooyadood waa gabadha waxa weeye sirahaygii iyo naftaydii baan ku aaminay habeenkii baad halkaa hurdaa iyadoo aan cidina ku ilaalin xaaskaaga way kula hurdaa haday doonayso naftay ku dhaafin kartaa haday ilaahay inoo wasalido wariya inaan isku xasuusin xanaaqa wax kasta ka suurowda a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim laakiin waxa weeye naftaadii aad ku aaminta halkaas aad ka khuurinaysa kuma soo qarxinayso sawirkaa duumi mayso muuqaalkaa duumi mayso aakhira kuu diri mayso biyo kula kuu daari mayso ya okaas marka xaaska noocaasa naftaadiiba ku aamintay wana u dulqaadataan wanaad gacan kula soo qofka goorma ayaad qofka waxa weeye gacan loo qaadaa waa markaad qofkaa rajo aanad ka lahayn anuu qof la dilayo oo qofan rajo laga lahayn damaarka marka dumarku waxa weeye waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo sakhiray inta ay dhinacaaga taagan yihiinna guulo badan baad gaadhaysaa maalinta ay dhinacaaga ka baxaanna culays badan baad la kulmaysaa kadaalika intaas waxaan kasoo koobayaa baahiyaha ay gabadhu leedahay 20 baahiyood oo single iyo gabadh la qabaaba ay leedahay iyo 10 baahiyood oo ay leedahay gabadha xaaska ay la qabo waa 30 ma diga fahanteedii soo iska kay daawanaysa 30 ka ma fahanteen qodobkii ugu dambeeyay ay dhiman oo ah warniyow nimankii Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay baahiyaha dumarkoodu ay leeyihiin iyo xuquuqdooda inay buuxiyaan maxaa ka hortaagan soddonka hore ma fahanteen waad fahanteen qaar baa maya soo qoray kuwaani ما ركوبه عنعاء وكواس وايه اوكي حتى صفي يعني فهمتين waxaan doonayaa hadaba inaan ku soo gabagabeeyo 4 qodob waan kaga jawaabayo su'aasha ragga Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay dumarkooda baahiyahooda fahmaan maxaa ka hortaagan hadaba arta waaye okay qodobka ugu dambeeyaan ka soo gabagabeynaya waxa weeye ragga Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay baahiyaha dumarkooda ay buuxiyaan culays nololeed ba ka hortaagan dumar fara badan dumar markaa serious baan idin la hadlaya qosolkii kaftanka soo dhamaada dumar ragga in badan oo kamid ah culaysyada nololeed ay la nool yihiin wallahi billahi tallahi waniga dhaartay haddii maalmaha kamid ah la noolaan lahaydeen dhibaato badan baa waxa weeye aad la kulmi lahaydeen tusaale ku siinayaaye maalin baa waxaan wada xiriirnay gabadh ninkeeda ka cabanaysa ninkaygu waqti fiican ima siiyo ima daryeelo maxaan ku dhahdaye jaanis ima siiyo ilama ciyaaro ilama sheekaysto waqti aan ku nafisay ima siiyo arrimahaas ay iga warantay deedna waxaan ku iri ninkaagu muxuu ka shaqeeyaa waxay ku tiri wallahi ma aqaano meel buu qabtaa wuxuu ku dhahdaa waa shaqo tagi subaxina uu baxaa laakiin gelinka dambe ayuu soo noqdaa habeenkii buu imaadaa wuxuu ku dhahdaa waa daalanahay hayla hadlin halkaasuu deedna jiifsaa subaxina saasuu ku kacaa deedna waxaan ku iri bal waxaad samaysaa dhowr subax 3 ilaa 5 maalmood meelahaas
waxaad samaysaa 5 waqti oo kala duwan ninkaaga u tag shaqada ugu tag maalinta koowaad dabagal waxaad soo ogaataa meesha uu ka shaqeeyo maalinta labaad waxaad u tagtaa 2 saac kadib xilliga uu shaqada galo maalinta saddexaad waxaad u tagtaa 4 saac markuu shaqada ku jiro maalinta afraad waxaad u tagtaa isagoo 6 saac shaqada ku jira maalinta shanaad waxaad u tagtaa isagoo xilligu soo rawaxaya saacad ka hor u tag bal soo ogow xaaladda uu ninkaa ku sugan yahay usbuuc ka bacdina haynoo ahaato gabadhii way tagtay sidii bay samaysay maalintii koowaad way soo eegtay meeshu shaqadiisu ay tahay maalin labaadii maalin saddexaadii maalin afraadii maalin shanaadii habeenkii lixaad bay la soo xidhay iyadoo ooyeysa maxaa kugu dhacay waan ku weri waxay u tii doctor wallaahi ninkayga waa dulmin jir waxa aan ka doonayaba wax ka daranba isagaa ka shaqeeyaba oo muxuu ka shaqeeyaa ninkaasi meherad buu nadiifiyaa oo waxa weeye uu cleaner ka yahay waxaan la kulmay bay tiri xilli isagoo meheradda horteeda taagan oo ninkii meesha lahaa uu caayayo nin caddaan uu shaqeynayay uu caayayay dabadeedna caagad biyo iyo waxay ku jiraan mise shaah ma garanayo waxay ku jiraan buu deedna wejiga kaga dhuftay wejiguu kaga dhuftay dabeedna wixii saa isaga duway caagiina uu iska qaado dhinacaas qashinku ku daray meeshiisbu iska sii nadiifiyey habeenkaas waxay tidhi xalay oo dhan maan seexan sidaan ooyay maxay soo ogaatay gabadhaas ninkan dumar badan raggan ay ka rabaan gabadhan waxaan leeyahay dumarku gabadhan ay ka rabaan in waxa weeye uu daryeelo oo uu waxa weeye nafteeda uu ogaado isagiibaa u baahan cid ogaata u baahan haddii baahiya adigu aad leedahay baahiyo lamidaba ninkani leeyahay yaa ninkan isaga uu waxa weeye saaraya ragga shaqaalaha ah ee meelahay ka shaqeeyaan rag badan oo haystaayo dad wanaagsan maaha way gumaysanayaan way caayayaan waa la aflagaadeynaya waxa weeye isagoo diiqadaysan oo shaqadaana meel uu uga taga aan garanaynin shaqadiina kama tegi karayo oo wuxuu isleeyahay xaaskaagii iyo carruurtaadii bay u tahay biil u tahay oo nolol u tahay xagad qaban meeluu qabto ma garanayo meeluu ka aado ma garanayo meeluu qabto ma garanayo waayo ninka sidaa loo soo gumaysanayay ee loo soo caayayay loo aflagaadeynayay ee lagu qoslayay ee lagu wiirsanayay markuu guriga yimaado sidee buu u qoslaya sidee baad uga rabtaa inuu noqdo qof qoslaya qof faraxsan siduu u noqonaya damarka marka wax badan oo ka mid a raggu waxay la nool yihiin oo laysa noolayd bay la nool yihiin waanan u cudur daaraa anigu anoo og dhibaatada rag badan ay dumarkoodu ay ku dareemayeen anigoo og haddana ragga ma eedeeyo inta aan eedaynta ka leexin karan ka leexiyaa in iyagu u waxa weeye ogaan u sameynaya iyo kas u sameynaya inay dumarkooda xumeeyaanna way jiraan oo iyagoo cilmigii iyo aqoontiiba u leh haddana waxa weeye kibir uu ku jiro annagu dumarka lama hadallo annagu lama sheekaysano annagu sidan ma samayn annagu rag noocaasi way jiraan laakiin rag badan oo dumarku ay tirsanayaan shaqada ka shaqeeyaan you can't imagine kama sheekayn karaysid ninkuna way dhibaysaa inuu uga sheekeeyo gabadhiisa xumaanta lagu samaynayo dumar fara badanna waxay ku odhanayaan waxaan doonayaa ninkaygu dee culayska uu dareemay inuu iiga warramaamaan doonaya dee hadduu kaaga warram lahaa maadaa noolaanba lahaaba ma qaadi karaysid culayska hooyo uur labaa tahay 9 bilood buu uurkaagu jira hadduu kaaga sheekeeyo shaqadaa lagu gumaystaa mid baa i dila mid baa i caaya madaxaa laygaga taagnaa ma qaadi karaysaa dareenka noocaas ma qaadi karaysid dantu maxay qasbaysaa inuu ninkani qarsadaabay qasbaysaa mas-uuliyad baa saaran naftaaduu ilaalinaya ilmahaagii uu ka warhayaa uurka kugu jiray caafimaadkaagii buu dabagelaya ma doonayo inaad dhaawac uu soo gaaro ma raba isagaa waxaan oo dhan dusha u qaadanaya qofka waxaasoo culaysa dareemaya cid kale ma dareemi karaya kuuli buu ka shaqeeyaa subaxii salaada hore rag badan baa salaada hore ka lahaa kuuli bay raadsadaan kuuliga sida lagu helo mataqaanaa baryaa lagu helaa kuuliga baryaa lagu helaa ma jirto shaqo kuuliyo meelahan iska taallay ma jirto baryaa lagu helaa maanta waad baraysa arrinaadeer igu dar arrinaadeer caruur iyo wallaahi xaas baan halkaa kaga yimi inaadeer igu dar ilaahay khayr ku siyaar inaadeer igu dar konton laan $5 buu ka qaadanaya $5 buu doonaya inuu gurigii geeyo igu dar inaadeer igu taagna inaadeer ilaahay khayr ku siyaar igu dar baryo
armahaynen iyo way naga taganayaan meel banaana ma haynin armaha igu darmiyo haradan doonaan biyaha yarsho laatan laana way turadan 20 kaas bal biilkii biyo waxay bariisay biyo ku shubtaa ma dhigayaan shaqadaas rag ku shaqeeya waa xamaal markuu ninku xamaal yahay tuurtiisa u raraayo waa shaqo uu baryayo ma aha shaqo maanta la raadinayo ma halkan maanta oo fadhiisanaya maanta gaari uu sugaya ka imanaya berbera laga soo rarayo oo alaab sida oo raashishadii si uga dejin lahaa sugaya hadduu maalinta xamaal bas soo diiqadaysan guriga ku soo noqonaya yaa ninkan ka fikiraya isaga yaa u maqan صح ما إنهم بقى هلك واحد يسكت يسوق قريسة وحبرته سكفتنا يسكت له وحبرته قف كستو وحبرتاي مش قرر حل ويلي محل كان فريق عد بقف ولا فريق زمان وما نوشا إنه لك عدد برجو كل تعالى يعني الدمر كي وحوي وحقتها مركاسا إن يرو إسكام على يعني ميراها إسكورنا يا rag baa dayacay dumarkii dayacay waa ragga kala saar raga aqoon darra keenaysa way jirtaa iyo nacasnimo ay ka tahay way jirtaa iyo axmaqnimo ay ka tahay way jirtaa rag iyagu duruufta haysatay adag tahay way jirtaa markaasuu dabadeedna xaaskiisii ku dirayaa nin xaaskiisii ku dirayaa kule waxaa lagu qabtaa aakhira lagu diranaya saasaa lagu dhahaa waa lagu dilaa adigu adoon baa tahay markaad adoonnimada ka xorooday kaale waariyada lafteeda nin baa adoon ah ونكن كولي ما أنت بدورس بكوتشراي وحو أدونك وياه جوده ما أنت أدون وياه وما أنت وحول ظروفها قاضية صح ما مركا على بدن بيرجعون للوليين وهذا كانوا رجوا اسمه دويان دختر ما تجان رجوا نن والله وحان كايبي ما دواني على أرتيه رجع قاير كود وقبل يسي حاسس يسي وضو دوني إن شيبان لا يقعدوا isaga deegaysa gacanta intaas loo qalanta lugihiisa safan waaweyn baa ku taala nabaro waaweyn baa ku yaala markaad wareysato waar ma saaxad xalata ma wallahi ma saaxana xalay nabar baa halka iga yaalo oo faalka iga taagano muddo intee lag bada xamishanaysa afar shantii sano ugu dambeeyay waan xamishanay maxaa dhaqtar u tagay de maxaa dhaqtar tagaa inta yar baa soo gashay intaana biilka reerka saada reerkii ka gaajoon maanta islaanta xamishanayso iyadaan si bil caafimaadkooda bal iyagu horta waxa noqdaan iyagu bal waxa noqdaan ma isleeyahay ku leey dhakhtar ma aadaan isma daweeyaan barnaamijyadeeda caafimaadka dadka ugu badan ee daaweynta soo doontahay waa dumar nin isdaweynaya arkaysid daweylaabaydu ku dhaariya daba ma cadaalad baa inaan intaan halkaa iska soo fadhiisto aan iska idhaahdo ninka Soomaaliyeed waa nin liita weeye gabadha buu aakhiro u diray kan kale oo caynkana sameeyay adoo aan wax wara ka hayn wan xaqiiqada ninku ku sugayay baan garanay yaa u maqan ninka qodobkan oo culeysyo badan bay la noolyihiin rag badan culeysyo badan la noolyihiin maalin kasta way fakarayaan yaa waa kuwa waalwaashay sida u fakarayeen maqaaxiyaha fadhiyaan saas u wada mashquulsan raggan maqaaxiyaha fadhiya dumar badan waxa haystaan raggan maqaaxiyaha fadhiyay in iska farfadhiyaan qaar badan baa fikir ku maqan maqaaxida inta uu fadhiyo maqan marba meel ka fakaraya meel uu dhaqaaqo garan lahayd tolo xaga shaqo ka raadisa tolo xagaada xaafadiina markuu tago gabadhi waxa ku leedahay ilmihi yara caanay baa ka go'an caana xagu ka dib cid ma soo dhaca mid dil buu geystaa cid buu dilaa halkuu qabtaa cid wax u dhimanaysa ma jirto shaqo ma jirto xirfado ma haysano waxba ma hayno sababta aan mar walba uga hadlo dumarku inay u baahan yihiin inay iyagu naftooda ay daryeelaan caafimaadkana idinku aad ka fakartaan idinku aad farxadiina raadsataan wadama aragtaa farxadaada adigu raadso ninkaygi farxad muusin iska dhaaf adigu taada samayso dhalinyarada qaar baa waxay soo qorayaan ninku day isagoo waxaya maahay isagoo aan waxba haysan waa inaanu guursan day waayahay intee bay qaadanaysaa intuu qofku taajiraya markaad tiraadaha guursan adigoo waxba haynin muddo intee leeg bay ku qaadanaysaa inuu dhaqaale keeno waxa uu ka keenaya dhaqaala ma waxyigu ugu imanaya dhaqaalo
misoo tuunbaraacaya xaguu ka imanaya dhaqaalo qodobka koowaad waa sababta koowaad ee u diidaysa raggu inay fahmaan baahiyaha iyo duruufaha ay dumarkeena ku nool yihiin arrinka labaad ee u diidaya waxa weye waa aqoon daro rag badan ma yaqaanaan gabadhu maxay xaq ugu leedahay xuquuqda soojiinka ma yaqaanaan shareecada lama dhigto guurka waan isjeclaa gabadha uu keenaya gabadhana kub iyo khaamay leedahay uu ku yaacayaa maxaad ku dooranaysaa gabadha maxaa ay kaa doonaysaa gabadha markaad guriga keento maxaad siin doonta wuxuu ku leeyahay beenna ku soo xerogeli runna ku dhaq ya beenna ku soo xerogeli runna ku dhaq buu ku leeyahay awalba saasaa lagu waday buu ku leeyahay naa labada neergood maaragta labada neergood inoomaa arrinka saddexaad markaa aqoon darradu waa sababta labaad weeye arrinka saddexaad waxa weye waa qallafsanaantii miyiga iyo kakanaantii dhaqankeena hore ku jirtay dabaata dhaqankii hore qallafsanaantii miyiga ay nagu jirtay iyo inaan waxa weye naxariistii waxaasba ay nagu yarayd ilmuhu markuu sidaa u raad dhaqaajiya la ohan jiray ariga lagu daro 4 sano ama 5 sano maanta jiro geelu raacaya cid u naxariisanayso hadduu xanuustana waxa la ma xanuunsanaa ka gacmeesha subaga hore u soo bacadka isu dhig bacadka soo digi subaga si xagad bacadka ugu dhigaysa mayna inuu dareero noqdaa baad doonaysa tamaragta marka qallafsanaantiina way jirtaa arrinka afraad ee isaguna sababta u ah in raggi ay fahmi waayaan baahiyaha ay dumarkeenu ay leeyihiin ay buuxin waayaan waxa qayb ka ah isku dirka laga dhex shaqeynayo rag iyo dumarka in la isku diro rag iyo dumarka waa la isku diray waa laga dhex faa'iideysanaya waxaa la doonayaa inay is cunaan doodaa loo qabanaya dumarkiiyo dooda waa dabadeedna waa xamaasad baa la isku kicinayaaba rag badan baa dumarka qaarkood meelaha ka qayliyo u guursada inay hanjabiyaan wuxuu ku leeyahay taa maaragta sidii isula weyntaa aakhiraan u diraya warkada aakhiraha u dirani waa la isku diraya dad baa isku diraya ole maalin walba xuquuqdaadii meel lagaga dhacay aakhiraha lagu diray waa lagu dilay dadkaasaa deedna meeshii qayb ka noqonaya afarta sababoodba waa 4 sababood oo sababaya in ragga Soomaaliyeed ay fahmi waayaan baahiyaha dumarkoodu ay leeyihiin oo ay buuxin waayaan inta ma layla fahmay asxaabay intaas wii gelin caawa ciwaankeygii saacad iyo 40 daqiiqo hadlayay igama wanaxaysa qof qoro soo qoray in yaro biyaa xitaa kuma jiro bismillah